taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Sareegaas Maxamed Sheekh Xasan Xamed oo booqashadiisii wadankaasi Suudaan sii wata ayaa waxa uu kulamo la qaatay saraakiil ka tirsan booliiska wadankaasi Suudaan isagoo markaasi kala hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhaxeeya booliiska Soomaaliya iyo booliiska Suudaan waxaana markaasi taliyuhu lagu soo waramayaa in xarumo hor leh oo booliiska Suudaan ay leeyihiin oo kormeer ku tagay Abbas Maxamed Nuur wariyaha wadankaasi nooga soo warama ayaa warkaa noo soo diray wafdigii uu hogaaminayay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Maxamed Sheekh Xasan Xamed ayaa maanta booqasho ku tagay qaar kamid ah kulliyadaha jaamacadda ugu weyn ee lagu barto ciidanka booliiska Suudaan taasoo kulliyado kala duwan ku leh magaalada Khartoum ee dalka Suudaan sidoo kale taliyaha ayaa booqasho ku tagay hay'adda tababarada ciidanka booliiska Suudaan midda oo raacsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Suudaan isagoo booqasho kooban sidoo kale ku tagay xarunta weyn ee keedka u ah booliiska Suudaan taliyaha ayaa booqday kulliyadda cilmiga booliiska iyo qaanuunka ee jaamacadda Ribaad taabacsan isagoo halkaasi kula kulmay madaxda kulliyadaasi iyo macallimiinteeda isla markaana indheeyay qaabka ay kulliyadaasi casharada u bixiso wuxuuna salaan ka qaatay qaar kamid ah cutubyo ciidanka booliiska Suudaan ee jaamacaddaasi wax ku barta dhankooda ardayda wax ka barata kulliyadaasi ayaa soo bandhigay qaabka ay wax u bartaan haddii ay ahaan lahayd dhanka kobcinta wacyigooda oo ay qaataan casharo cilmi ah iyo casharo dhanka jirdhiska ah waxayna halkaasi ku soo bandhigeen sida askariga uu isku difaacayo marka uu dagaal ku jiro uusan hubaysanayn iyo qaab lagdan ah oo ciidanku wafdigu ku tusayeen wixii ay barteen kulan uu la qaatay taliye Xamed madaxda jaamacaddaasi ayaa waxa uu uga mahadnaqay qaabka wanaagsan ay u soo dhaweeyeen isagii wafdigiisa oo xilligan booqasho ku jooga dalka Suudaan isagoo cadeeyay in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan tababaro joogto ah oo dhan walba leh maamulka jaamacadda Ribaad ayaa dhankooda u sheegay inay diyaar u yihiin inay tababaro siiyaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee walaalahooda ah isla markaana gacmo furan ku soo dhaweynayaan iyagoo taliyaha guddoonsiiyay bilad sharafeed lagu muujinayay qalbi furnaanta ay shacabka Suudaan iyo xukuumadoodaba u hayaan shacabka iyo dawladda Soomaaliya dhanka kale wafdiga ayaa booqday xarunta ugu weyn ee keedka u ah ciidanka booliiska Suudaan iyagoo arkay qaabka loo kaydiyo feelasha iyo sirta ciidanka booliiska ee loo baahan yahay inaysan marnaba lumin taliyaha oo la kulmay madaxda xaruntaasi ayaa u mahadnaqay qaabkii ay ugu soo dhaweeyeen xarunta iyo sida fiican ay ugu sharaxeen qaabka xaruntaasi u shaqeyso wafdigan uu hogaaminayo taliyaha booliiska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale booqday xarumo ciidanka lagu tababaro oo kala duwan kuwaasi oo ku yaala qaarkood meelo magaalada Khartoum ka baxsan oo duleedkeeda iyo kuwa ku yaala gudaha isla magaalada Khartoum booqashada wafdigan ayaa lagu wadaa inay gabi ahaanba soo gabagabeeyaan maalinimada Khamiista ee soo socota halkaasi oo heshiisiis afkarada ku kala saxiixan doonaan labada dhinac waa madaxda ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa Suudaan intaba Abbas Maxamed Nuur warbaahinta qaranka caasimadda saddex geesoodka ee Khartoum Suudaan